منيش وانا مصطفى الله نحرسته iyo walaalkeena Zakariya reertooda الله نحرسته منيش واحد marka baraha bulshada la joogo qof runtii aad u wacan inta waxa ku sii darsatay akhlaaq wanaag laakiinse jilinkeeda ayaa runtii ahaa mid dadka social media isticmaala ay runtii aad u jeclaayeen haddaba Muniish oo dhimatay week ka hor ayaa hooyadeed ka warantay qisada ku dhacday iyadoo ku riyootay inanteedu timi kadibna dhamanada ka dhunkatay haddaba arrinkan dabcan qisadan ayaa noqotay mid baraha bulshada saameyn weyn ku yeelata taasoo gaadhay culimo iyo ilaa dadkii kale ee Soomaalida haddaba qisadani ayay hooyadeed ka waramaysaa annaguna runtii waxaan aad u soo turjinay qisada dhabta maadaama muuqaalka islaanta ولا شيء منيش وانا مصطفى الله نحرسته iyo walaalkeena Zakariya reertooda maahayn Zakariya reertooda maahayn min taksiilaa murqmaana xoogsadu ahaa ilaahay waxaan ka baryayaa labaduba ehelkay ka tageen ehelka khayr badan Allah siiyo daartay ka tageen daarka khayr badan Allah siiyo xalay waxaan la sheekaysanayay Muniish hooyade iyo walaalaheed ayaa la sheekaysanay imikana waxaan filayaa way joogaa horta iyaga samir iyo iimaan Allah ka siiyo waxay tiri iyada kaliya maaha iyo walaalaheed kow laba saddex afar ayaa waxay yiraahdeen muno nagama aanay tagin gurigeenu wala nooshahay hadalkaad u dhageystaan waanu ku riyoonaa Ibrahim Kenyawi oo runtii isaguna ku sugan isla Nairobi ayuu ugu yeeray dad badan oo runtii kamid ah dhalinyartii ay isla joogeen Muniish Marin haddaba sidoo kale waxa ka soo qayb galay dhammaan dad badan oo waalida dhalinyaro iyo dad kale oo culimo aad u tiro badan iyo sidoo kale asxaab ay iskugu dhawaayeen Muniish haddaba Sheekh Kenyawi ayaa ka dalbaday dhammaan dadka daawan doona muuqaalkiisa laga duubay hadda in ay u duceeyaan walaashin Muniish Marin oo runtii maanta naga hoose Allah waxaan naxariistaayaan leenahay jannadii firdawsana ha ka waraabiyo runtii adigu waad garan kartaa qof sheekh dhan oo culimo inta stage dhan iskugu yeeray uu duceeyay kaalinta ay ku lahayd isla waad garan kartaa runtii cid ku sheegmayso sidoo kale arrinka uu sheekhu ka hadlay waa mid aad runtii loogu farxo ilaahay baan uga baryaynaa ilaahay jannada firdawsa ka waraabiyo sidoo kale maadaama Muniish Marin ay dhimatay runtiina ay ku dhimatay shil gaari waxay tusaale u noqotay dad badan oo runtii social media ka caana ugu horreyn waxay ka noqotay qaaliladan oo ahayd fanaan laakiin si hadda ah qofan kiis kaga baxay oo runtii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala u noqday dambigii iyo fusqii iyo wixii uu ku jirayna gadaal Ilaahay subxaanahu wa ta'ala dib uga noqday oo yiri fankii waan ka baxay isla markiiba waxa telefonkii waan ka baxay kadib markii saaxiibadeed ugu dhaweyd ay dhimatay sidoo kale qaaliladan waxay fanaaniinta ugu shidan marka la eego xagga Soomaalida ha noqoto xagga fiiska ama ha noqoto sida ay heesaha u kala runtii dhanka u leeyihiin haddaba inantan waxay ku kala tagan isla habeenkii iyadoo caafimaad qabta kadib subaxii ayuunbay safar yar u baxday safarkaas oo Ilaahay ku waday in nafteeda ay ku weydo haddaba saaxiibaal ugu dambeyn iyo xogal urursi waan la wadaagnay saaxiibayaal waxaan ka codsanaynaa haddii aad ku cusubtay channelkeenan ay tahay markii kood ee soo marto saaxiibka ilaawin subscribe like na saar muuqaalkan si gaaro dad badan kamid ah asxaabteena waad ku mahadsantahay markaste la socoshada muuqaalkan iyo haddii aad dhamaysato saaxiib